laamiga ayaa maalgeliyay yaase qandaraaskiisa dhismaha qaatay. jawaabta u baahan isweydiinta waa mid ah. war waa sidii hore iyo calool adeeg waa hilaac soo idin leh dhammaan saaxiibayaal aad baan idin jeclahay meel kasta dunida daafaheeda ka joogtaana waxaan idin rajeynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala rabadaantan uu inoo dhameeyo caafimaad qab. fiidiyogan aad runtii hoosteeda ku aragtaan waa xarig jar lagu sameynayo laamiga weyn ee halbowlaha ah ee mara magaalada Laascaanood oo dayactir lagu sameeyay. dadka xariga ka jarayana waa qayb ka mid ah horgalladii ay u soo magacaawday jabhadda SNM gobolka Sool. waa ina cali qase oo ah nin jaac siyaada oo maayar ah iyo barasaabka gobolka Sool oo ah nin habar jecel ah. haddaba waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo shacabka ka soo jeeda goboladaas dal iyo dibadba ha joogeene say nimankan horgallada sheeganayaan in ay laamigaas iyagu maalgeliyeen ma aha xaqiiqdu. xaqiiqdu waxay tahay laamiga ayaa maalgeliyay yaase qandaraaskiisa dhismaha qaatay. jawaabta u baahan isweydiinta waa mid ah. maanta iyagaa sheeganaya in ay laamigii dayactireen. horta runtii laamiga waa ilaa 100 tallaabo meelaha inta la dayactiray waa ilaa masjid jaamac ilaa goolata inta u dhaxaysa oo daamur ay mariyeen. allah musta'aan una sameeyeen liidihii ama calaamadihii gawaarida iyo dadka kala hagi lahaa. xaqiiqda runta awaamidan laamigan waxaa maalgeliyay hay-adda khayriga ah uu aasaasay ee baweyne subxaanahu wa ta'ala ha u naxariista Saciid oo Cabdi. hay-adda oo magaceeda la yiraahdo SVO maantana uu madax ka yahay wiilashiisa wiil ka mid oo la yiraahdo Cabdikariin Saciid oo Cabdi. dhismaha qandaraaska laamigana waxaa qaatay shirkadda caaqilka Sahal Construction Company. xaqiiqada jirta waa mid ah. qof walba oo ka soo jeeda gobolada SSC ama gaar ahaan gobolka Sool waa inuu sida u ogaadaa jabhaddan SNM iyo horgallada ay idiin soo dirtay wax ay idiin qabato haba yaraatee ma jirto. kaliya iska daa inay wax idiin qabtaane waxaad ka dhaxasheen waa la wada ogyahay. amni xumo, dilal qorshaysan, waxyaabo fara badan ayaa laga dhaxlay. hadday wax idiin qaban karaan waxay wax idinku qaban lahaayeen ama horumarka magaalada ay kaga shaqeyn lahaayeen kaliya labada seeladood ee magaalada ku yaala ee xoolaha nool. seelada ku taala tuulo qodax qofkii yaqaan waa uu garanayaa ama masaajidka wadaagtiisa iyo seelada ku taala Saamaley ee geela. canshuurta maalintii ka soo xaroota ama miisaaniyadda kaliya ee maalintii ka soo xaroota haddii lagu dhufto sanadkii waxa aad u fara badan ayay qaban lahayd. ma isweydiiseen iska badaaba canshuuraha laga qaado ganacsatayaasha iyo kambaniyada kale. ta kale ina cali qase waxaan leeyahay horgal ina cali qase maanta ma ahayn koofeer dumar ay isku qurxiyaan ay gabari furanayso inaad social media inta iskugu yeedhaa tiraahdo maanta koofeerkaas aan xariga ka jaraya. laami dadkii ay lahaayeen ay dhisteenna ee muwaadiniinta ahaana aad tiraahdo xarigan ka jaraya oo jabhadda SNM ayaa hirgelisay. ma ahayn shaqadaadu taa. shaqadaadu waxay idin ka shaqeyso amniga gobolka Sool. waayo waxaa tahay nin dhulbahanta ah, waxaa tahay nin jaac siyaada. ma isweydiisay raggii garbahaagay taagnaa khaasatan raggii sababta u ahaa in aad maanta maayar noqoto Cabdirasaaq oo kale meesha uu ku maqan yahay dabagal ma samaysa baaritaan ma samaysa waa maya. Cabdikariin oo sariir saaran xildhibaanadii garbahaaga taagnaa ma isweydiisay
adigana taasaa kuu dambayn doontaa. adigana taasaa kuu dambayn doontaa. inkastoo san dilalka qorsheysan ee laascaanood ka dhaca ay ku fulaan ayna ku dhacaan kaliya dadka u shaqeeya jabhadda SNM ay ka soo jeeda gobolka SSC. war ma haysaan hal qof oo iidoor ah oo jabhadda u shaqeeya oo gobolka Sool lagu dilay? waa maya. ta kale ee jabhaddaasi samaysa waxa weeye kaliya gobolka Sool markay dadka u dhashay ka magacaabanayso waxay magacaawdaa intooda jaahiliinta ay aqoonta lahayn. bal hadda ninkan maayirka ina Cali Qase waan aqaanaa, waa nin saaxiibkeeda. tacliinta aad leedahay iyo goorta wax soo baratay maxay tahay? waa maya. way jirtaa in ay marmar magacaabaan dad aqoon leh, laakiin sanad kadib qofka aqoonta leh magacaabaan ama waa uu dhintaa oo waa la dilaa ama waa la casilaa. balse kooda bilaa aqoonta ay magacaabaan lamana dilo lamana casilo. ma isweydiisan middaa? inta taa haddaan ka gudbo, madaxweynaha Khaatumo aad baad ugu mahadsan tahay adiga saraakiisha ku garab taaganba howlaha aad wadaan ee dib u xoreynta gobolada SSC. waxaana baaq u dirayaa dhammaan dadka ka soo jeeda gobolada SSC, ganacsatada haday ahaan lahayd, siiba ganacsatada canshuuraha aad jabhadda siinaysaan ku xoojiya ciidankiina, ku xoojiya ciidankiina dib u xoreynta jabhadda SNM, ku xoojiya ciidankiina dib uga xoreynaya gobolada SSC jabhadda SNM ku xoojiya. waxa xaqiiq ah oo biyo kama dhibcaan ah in mar dhow laga sifeyn doono jabhadda SNM gobolada SSC. waayo hadday xabadi dhacdo ninna dhuluusan laayayn lugaha kuma hayo. taasaa xaqiiq ah. ninna dhuluusan lahayn lugaha kuma hayo. xaqiiqdan kaliibkan usoo duubayna waa middaa, waana inaad ogaataan jabhaddu waxay idiin qabanaysa haba yaraatee ma jirto. weli ma aragteen iyagoo baaritaan wada imise qof baa inaga maqan? waa maya. heer ay marayaan wixii aad idinku qabsateen inay iyagu isku magacaabaan, in iyagu isku magacaabaan. horgalladana mid baan u reebayaa. nimanka horgallada ah magacaabi maayo. nimanka horgallada ah ee ka soo jeeda gobolka Sool ee jabhadda u shaqeeya, ogaada inaad iyaga ka tirsan tihiin. xabadda iyaga lagu wadana inaanan idinka duwayn. ogaada xabadda iyaga lagu wadana inaan idinka duwayn. ogaada nin walba howlgal ahow ogow. waxaa la yidhi falaadhi cirka loo tuuro nin walba filo soo ma ahayn. maanta walaalkaa haddii la dilay uu horgal hore u ahaan jiray, cid uu ku maqan yahayna aan la garanayn, ma diidan tahay inay adiga kugu soo socoto? waa maya. dal iyo dibadba waxaan leeyahay dadka ka soo jeeda gobolka SSC inay taageero maal iyo naf xudud waxay hayaanba ay ku taageeraan ciidanka SSC. waxaan rajeynayaa biidmillah sida ugu dhaqsiyaha badan in laga saari doono jabhadda SNM gobolada Sool iyo Sanaag ama gobolada SSC la isku yiraahdo. sidaa iyo nabad.